أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. marka halkan waxa marka maanta ka gudagalaynaa kitaabkanaga. marka kitaabku waa kitaab aad cajiib ah, qayb badana, aad iyo aad loo wanaagsado, dadku aad ay u jecel yihiin, talabatul cilmiga iyo culimadaba aad ay u jecel yihiin. waa kitaab aad iyo aad u wanaagsan. kitaabkan axaadiistiisa waxa ay gaarayaan ilaa 2000 xadiis. sidoo kale wuxuu ku socdaa qaabkii xuruufta hijaayiga ayuu ku socdaa. marka kitaabkaas aan bilaabaynaa maanta oo taariikhdu tahay 30 bishii 8aad maalin Arbaca, saacaduna ay tahay abaar 5 saac. marka insha Allah ta'ala harjiina ilaahay si wanaagsan inuu noogu bilaabo, si wanaagsan inuu noogu soo khatimo. kitaabku waa kitaab aad muhiim ah. marka imaamka qorayna waa imaam iska shahiir weeye. marka mukhtaarul hadiis nabawi wal hikam al muhammadiyya mushamalatun mustamila ala 2000 من أحاديث منتخبة من أصح الكتب الحديث. مركا إن شاء الله تعالى وبلاوننا كتاب كيدا. مركا حديث كتير الريي أيام بلاوننا اسم الحرف الهمسة أبو كبلاوي. بسم الله. آتي ونيمان هيا باب الجنة، جنة باب كذا نيمان هيا يوم القيامة، مالك يوم القيامة يا نيمان هيا. marka nabigu wuxuu yiri salaatu wasalaam waxaan iimaanayaa jannada baabkeedaan iimaanayaa maalinka yawmal qiyaama ayaan iimaanayaa. fa astabtihu wa furad dalbaya fa yaqulu alqasin wuxuu leeyahay faraha jannada ma aantaadu kuma tahay. fa aqulu waxaan leeyahay muhammadun anigu muhammad baanahay. fa yaqulu lahu wuxuu leeyahay malaki bika adiga baa umurtu ila amri allah aftaha inaan ka furin li ahado qablaka horta ahaadi. رواه أحمد عن أنس. حديث كان إمام أحمد باوريي راوي قال له وريينا وحويان وأنس وي. والله سبحانه وتعالى أعلم.